qodobada ugu muhiimsan waxay ahaayeen in la analyze gareeyo waxyaabaha ugu muhiimsan sida dhanka siyaasadda haddii ay tahay dhanka bii'adda haddii ay tahay dhanka bulshada maadaama mar walba oo in wax la hormariyo loo baahan yahay waxaa jiro waxa la yiraahdo isheeg threat analyzing ama in halista jirta markaas la qiimeeyo waxyaabaha annaga aan uga doodnay oo focuska aan saarnay wuxuu ahaa dhammaan faktarada saameyn kara in istiraatiijiyadda ciidanka maritime police heer federaal la dhiso waxaana ka fiirinay dhanka politicalka waxaana ka fiirinay dhanka dhaqaalaha waxaan kaleeto ka fiirinay dhanka bulshada maadaama deegaan walbo uu ka duwan yahay deegaanka kale hadafka guud si ay uga qayb qaataan istiraatiijiyaddaas istiraatiijiyad common ay u noqoto halista soo wajahaysa galmudug way ka duwan tahay midda ay wajahayso koonfur galbeed midda ay wajahayso puntland midda ay wajahayso muqdisho sidaas daraaddeed ayaa waxaan marka muhiim ay noogu ahayd in aan yeelano common approach ama hadaf midaysan oo guud oo ciidanka maritime police unit waxaan rabaa aniga ka wasiir ku-xigeen ahaan oo barnaamijkan hormuud ka ah uu nagu hogaaminayo wasiirkeena wasaaradda amniga in la qabto shaqo cad oo laga gungaaro inaan aragno ciidan dhisan oo ay leeyihiin maamul goboleedyadoo dhan arrintaasi ma rabo inay noqoto theoretical waxaan rajaynayaa beesha caalamka halkan fadhida inay u qaataan as a serious wax naga ah sababtaan saa u leeyahay waxay tahay dowladdeena waxay ku mashquulsan tahay la dagaalanka cadowga Soomaaliyeed ee argixisada ah oo mar walba ku ah dhibaato shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan amniga bariga sidaan u suganaya waxaan rabnaa amniga badana in loo sugo waxa ogsoon tihiin qataraha ka imaanaya xagga badda ee ugu horeeyaan Daesh oo adeegsanaysa ama ka faa'iideysanaysa wadamada dawlad la'aanta ay hadda ay dhibaatadu ka taagan tahay sida Yemen oo kale waxaan rabnaa marka dhibaatooyin kale oo soo raacaya jira oo ah ka mid tahay inaan hadhow wax ka qabanno la dagaalanka burcadbadeeda iyo sidoo kale kalluumaysiga sharci darrada oo aan ognahay dawlado badan ama dad badan oo sidii maafiya ah badda Soomaaliya u soo gala ugana kalluumaysta sidoo kale inaan ka hortagno human trafficking oo ah wax dhibaato ku ah shacabka Soomaaliyeed haddii aan lahayn dhalinyarada Soomaaliyeed ama haddii aan lahayn dad ka yimaada wadamada jaarka dhammaan waxaan u aragnaa xalka saxda inuu yahay in la helo ciidan yaaleed xeebaad Soomaaliyeed oo fikirkeedu ka yimaado dawladda Soomaaliyeed